برنامجك فيصل halqadiimka ugu dambeysay hadii aan soo qaato sidaan imka sheegay oo kale waa nin hantiila ah oo aad u taajira ninkaasi gabadhiisa khilaaf baa dhexmiday khilaafka waxa sabab u ahaa dadka jaarka way jaar wanaagsan iyo jaar xunba wala leey marka dadka jaarkiisa ah ayaaba maxay haday sabab u noqday labadan qof inay isku dhacaan run ahaantii waxayna ahay laba qof oo aad isku jecel ninku aad buu jecel gabadhuna aad buu jeceshay ninkeeda sidaynu wada daawanaynay gabadhaasi ninkeedaasi waxay u soo raacday jaarkii waxay raacday diraalimadii dadka jaarka na Faysalow wad faasintay dhibaatada dadka qaar eeg ma wada aha jaarka oo dhan waxa jira jaarar badan waxa jira markaad ka guureysid xaafada markaad degantay hadaad ka guureyso alla lagu soo muraaqoodo oo laga soo daba ayaa jira waxa jira jaararka qaar markaad ka guureyso abad suurana sidii ku arkan xilligaad guureyso habeenimo ka guureyso marka jaarku isku mid maaha marka jaarkaasi jaar xun bareerkaas la jaaray wayna isku direen ruuxaantii gabadhu sida ay sheegayso waxa tiri hantidayda iyo ninkayga iyo sar isku faraxsanay ayay ka xumaadeen kadib dab bayna dhaxdhigan xumaan bayna dhaxdhigan kadib meesha waxay u timid inay ninkeeda cafis weydiisato way barnaamijkan wuxuu fududeeyay qof kasta oo wax tabanaya ama qof kasta oo calooshiisa wax ku jiraan in uu inta bartaa soo fadhiisto uu soo bandhigto intaas oo kun oo bilyan oo qof oo halka fadhiya inuu u soo bandhigo yani waxa calooshiisa ku jira si uu cafis u helo haduu hooyadii cafinayo haduu walaashii cafinayo haduu ninkiisa cafinayo yani cid kasta marka gabadhaasi halka waxay u soo fadhiisatay mashraxadan u soo istaagtay in la cafiyo inay ninkeedu cafiyo ma sha Allah horta wuxuu aanin aad u qalbi adag intii hore dhow ku adkay Faysalo aad baad maasantay najax waxaan ku sheegaya horta ninkan dhibaato badan baa ka muuqatay sida runtii uu soo tabcay dhul shisheeyo waliba kulul ayuu ka soo shaqaystay sida runtii aad ayaa waxay ugu adkeyd inuu cafiyo ama inuu soo hor fadhiisto laakiin haddana wuxuu qaadi waayay dadka qisadani Ciraaq ayay ka dhacday laba dhalinyaro oo saaxiibo ah iskuna dhacay waanu iman doonaa qisada faafahinteeda ugu horeyn aan soo dhaweyno saaxiiba dacwaha Usama aan soo wada dhaweyno dhamaantiinba أهلا وسهلا أسامة سودو أسامة سو خير ما خير ويا وارنتا هو خير يقورن عراق أدو يقورن حالة هذا بان ونعكسنا أنا أدو عراق حكيت كده كني بغداد بكده كنا اسل بغداد عاصمة انت أنا اللي بدين وضع هذا حوقا بالهورتا دادك إنير آن قصدي أن ير بياميو إذا دحمرتي أديك صاحبك كان هو أسامة دادي سنة وتضوي لباتن جر maamulaha halka ganacsiga ayuu ahaa wuxuu leeyahay saaxiib aad qaali ugu ah isaga uguna jira booska walaalkii waxaana la yiraahdaa Dr. Amir waxaanu ku takhasusay shaybaarka Amir naftirkiisuba walaalkii ayuu ka dhiganayay Usama xiriir adag ayaa ka dhaxeeyay kadibna waxay go'aansadeen inay furtaan meel ganacsi u khaas labadooda waliba way furteen meherad internetka way shaqaysteen mashruucu markii hore uu guuleystay markii dambe xaaladda ku xumaatay tuhum ayaa soo kala dhaxgalay labadooda Usama wuxuu ka shakiyay Amir waxaanu ku tuhmay Amir shaqadoodii sidoo kale wuxuu go'aansaday inuu shirkadii bartaa ku baabiyo shuraakinimadina halka ku baabiyo xiqdi weyn ayuu qabay Amirna wuu sheegay isaga waliba si careysan ayuu la hadlay hadalkii ka soo yeedhay ayaa wuxuu gaaray Usama mid kamida hablaha oo u dooneed Amir gabadhu dooneed Amir way ka xanaaqday way iska fasaxday Amir intaasoo kaliya hadana kumay koobneen waxay u tagtay ehelkii Amir wayna ka dacweysay ehelkiina waa u xanaaqeen isagii micnaha arinku waa qasmay soo saas ma Usama wad burburisay baninkii saaxiibka Amir ayaad noloshiisii baabisay Usama maya taanigu marnaba horta ismaan lahayn waxyeelo u geysay isaga ama dhibaato laakiin sida way iga dhacdayo dhibaatada way iga noqotay marka saaxiibkii aad buu qaali igu ahaa aniga walaalkayo kalan ka dhigan jiray xataa aad ayuu qaali igu ahaa aniga waxa uu yahay walaalkay aan hooyaday dhalay wadaag jirteen marka Amir Soomaa adiguna marka waxaad ka faafisay siriis oo dhan marka Soomaa adkaysiga anigu waxba kama faafin laakiin isaga ayaa u maleeyay
inaan sirtiisii wixii aan faafiyey isaga laftiisa waxyaalo badan waxaa jira uu been ka sheegay oo aan jirinba midda kale xitaa walaalkay baa yimi ku yidhi maxaa dhacay oo waxba umuu sheegin isagoo si kale ayuu ugu dhigay arrinkii yacni dee wax kastaaba ha dhacaan waxaa kale jiray maxaan ku idhahaa argoosi maya dee anigu argoosi waa argoosi baa la oran karaa ma jiran argoosi macnaha dee adigu isku buuq baa yimi markuu si xun ila hadlayna xoogaha waan yaro cadhooday ma ogtay ma gabadhi u dooneed baad adigu sheegtay markaa iyaduna saasay ku diiday markaa guulkiisa way ku gacan saydayo ma garanaysaa markaana ehelkiisa ayay u tagtay waa inay ka soo dacweysay arrintu saasay u dhacdayo deetana markii dambe aan is aragnay isaga wuxuu igu yidhi waxaas iyo waxaas iyo waxaasaad igu samaysay arrintan adaa ka dambeeyey usaama anigu hadda halkaa waxaan ka dareemayaa inaad isku dayday inaad la heshiiso caamirna uu kugu diiday marka fursad kalena waad weyday aad kula heshiiso sidaa awgeed baad usoo doorbitay barnaamijkan musaamax kariim waan gartay haddaba anagu fariintii adiga waan kaa qaadnay aad noo soo gudbisay isagiina waanu gudbinay fariinsidahayagii ayaa ilaahay gurigiisa geynaya bal aan eegno inay gaadhay fariintu iyo inuu aqbalayba aan aragno labadeenaba iminka caamir baanu fariinta u keentanaa sugaanigiiyo baaskeelada مدن عامر باح وانا كده magacaaga dhammaystiran bal عامر سهل baa la yidhaahdaa waxaan ku weydiiyey maxaad ka takhasustaa war shay baristana inaad fariintan baa kaaga timi mudane George oo barnaamijkiisa kugu xasuumay ma naga aqbashay fariintii mudane George fariintii waa laga aqbalay mudane Caamir معناها عامر waa uu aqbalay fariintii waan uga mahad celinaynaa haatan stuudiyaha gudihiisa ayuu ku sugan yahay waxaanu ka yimid baqdaad sidoo markii horeba uga yimid usaama bes yani sawirka qisadan ayaa ah khilaaf dhex maray caamir iyo usaama shuraaka ay ahayn waxay ahaayeen dad asxaaba kadibna waxay wada furteen shirkad kadibna labadoodu waa iskhilaafeen dhibaato ayaa soo kala dhex gashay labadooda dhinacba bal hadda ayaan sheekadeedii dhammaystiri doonaa ugu horreyn aan u yeedhno caamir اهلا وسهلا عامر طبعا وداعا جورجيو ورن سيتاينا وفي عنا يا استاذ بلي ورن ما شاء الله دكتور شيبارا ايا تاهي سوما هاي اريمونا سوفي عم بكو كلا سودان بقولك الحمد لله الهي وين نسل بغداد سوماها ما انا اقول هرس مرات بانه من سمرات صالح الدين وانكو سودو وين يا مر لبا الهي كدايو ايغورن بغداد حالديدا iyo samara xaaladu aad bay wanaagsan soomaa ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير عامر waxaad isweydiinaysaa su'aalan ku weydiinayay saad iga jawaabayso sida qof maqan oo kale waxaad isweydiinaysaa waxaad halkan u timid run ahaantii runtii anigu dhexdhexaadiyaan hay anigu qof khayr faafinayaan hay aniga ilaahay ku daayaniyo qof ayaa fariin kuu soo dhiibtay taasoo aniga iga socotaa waan gartay ma garan ma jeclaan lahayd cidda ku yeedhay inaad aragto maxaad yeedhay aniga waaye shaashaddaa daba eeg waanaad arkaysaa waan dareemi karaa maskaxdaada waxbaa ka guuxayaa talo waayo wiilkan dhallinyarada kani waa Sam Usama Usama saaxiibkay ma waxbaad ka tabanaysaa halka Usama waan ka tabanayaa waxbaad ka tabanaysaa hore ayaan u ogaa sheekada maasha Allah sidaan ku ogaaday miyaad garanaysaa sheekada waxaan ku ogaaday ilaan Usama weeye qofka adiga doonayay inuu ku arko waxaanu naga codsaday dadkan oo dhan hortooda in adiga lagu yeedho si uu kula hadlo laga yaabaa inuu awoodi waayay
ciraaq dhexdeeda inuu kula hadlo amba samra dhowr jeerna uu isku dayay siduu kula kulmi lahaa laakiin uu ku guulaysan waayay sababtoo ah adiga ayaa aad uga xanaaqsanaa si kasta haataba ood maanta ku wada sugantihiin barnaamijkan masraxan iyo stuudiyahanba waanu ka baqay inuu fariinta adiga kusoo gaarsiiyo sida awgeed buu anaga fariinta noogu soo kaa dhiibay oo ma isaga aniga fariin soo diray isaga kuu soo diray wuxuu ku leeyahay saaxiibkayga qaaliga ahaayo caamirow waxaa laga yaabaa tani inay khayr inoo tahay anigu waan ogahay haddii anigu aan maanta booskaaga ku jiri lahaa inaanan ogolaan lahayn inaan ku arko amba aan kula hadlo amba aan ku saamaxo laakiin xaq ayaad igu leedahay doctor caamirow aniga weeye qofka khaldamay ka ku raaligelinayaana aniga weeye kaana raaligelinaya wax alaali wixii aan ku geystay oo dhaawaca waa run in aan sabab u ahaa kala tagga adiyo noloshaadii waxaan anigu maanta cafiska adiga ku weydiisanaya waayo aniga damiirkaygii ayaa canaantay waanan ka seexan waayey dhibkii aan kuu geysta adiga saaxiibkayga qaaliga ahaayo halkan waxaan u yimid adiga awga si aan kuu raaligeliyo waxaan loo yimid inaan kugu hor raaligeliyo dadkaasoo dhan hortooda waxaa laga yaabaa inay daawanayso barnaamijkan gabadhii aad kala tagteen oon anigu sabab u noqday kala teggiina waxaana laga yaabaa inaan sabab u noqdo isku soo noqodkiina waxaan kaloo sii rajaynayaa inay daawanayaan barnaamijkan ehelkaaga iyaguna ay arkayaan sidaan kuu raaligelinayo waxaana laga yaabaa khaladkii aan ka dhaadhiciyey iyaguna inay fahmaan saaxiibkayga qaaliga caamirow ninka ragga ah waa kii qirtaa khaladku galay aniguna taa waa ogsoonahay maanta inaan kaa galay khalad adiga lib badan aan ku geystay laakiin waxaan ku rajo weynahay waan maanta doonayaa inaan ku soo noqonno sidaan marka horeba isku ahaan jirnay oo aan xumaantadii ina dhex taalay aan halkaa ku tuurno oon ku soo noqonno saaxiibo isjecel sidii berigii hore ahaan jireen balana ay halkaa ku hadho walmusaamax kariim tani waa risaaladii usaama wuu ii sheegay say wax u dhaceen weliba ka dhankiisa dabcan isagu waa khaldan yahay 100% isaguna uu dareensayay inay heer ka soo gaadhay maanta xaaladdu ta adigii isagaba adiguna inaad dareento markaa yani dadku inay isku dhici karaan mararka qaarkood qofka insaanka way soo martaa sida khayr amba shar wax kale hogaamin karaya laga yaabaa oo ka awood weyn khaladaadka qaarkood haddaba aan wada aragno usaama la hadal saaxiibka oo si toosa ula hadal bal sida waxu jiraan iska waran see tahay alxamdulilah anigu waan ogahay horta inaan dhibaato weyn ku horseeday oo maxay ahaydee macnaha sanado fara badan ayaan adiga dhibaato iyo cadibaad kuu geystay marka wax badan ayaan ka qoomeeyay anigu dhibaatadan kuu geystay xataa waxaan isku dayay inaan fariintayda kusoo gaadhsiiyo laakiinse way dhici weyday maantana waxaan u imi dadka hortooda inaan ka caddeeyo wax kastoon kugu sameeyey inaan kuu hagaajiyo anigu caamilo barnaamijkan waxaan u imi wax kasta oo dhibaataan kuu geystay inaad iga cafiso wax kastana aynu hagaajino sidii horena ku noqono macnaha waxaan rajaynayaa inaad cafiso ahlan wasahlan caamir miyaad dareensan tahay dareenka saaxiibtinimo uu ku hayo saaxiibka usaama runta haddaan kuu sheego maya bisba micnaha noloshaada dhan baad ka saartay miyaa dhammaanba haa waa sidaa uma saasoo dhan ayuu kuu dhibaynaa waxaanu sheegaya iyo gabadhan iga tagtay iyo faamiligayga arrinku waa ka weyn yahay ma maqashay maamaada tiraada saaxiibkaa marna waa sadka marna waa sababta si fiican haa anigu usaama 6 sannadood u dambeysay maxaan odhan karaa wuxuu ahaa walaalkay aan hooyadii dhalin usaama hadalkaa u fiirso waxaa jirtay dareen saaxiibtinimo adag iyo kalgacalba may jirin wax isaga soo mara oo aan anigu ogeyn iyo wax anigay soo mara oo aanu isagu ogeyn xataa wax noo kala socnaa male xaragada dharkan ka waran fiican yihiin kuwan aniga lama cajibin kuwaasay cajibin saasaa la isuran jiray macnaha xiriirkaygu wuxuu ahaa kalgacal walaaltinimo xitaa aan xad lahayn sidii walaalahoo kale ayaad aad isku jeclaadeen waan gartay xataa waxa dhacday hadda ka hor maalmihan jaamacadda ka qalin jabinaynay
waxaa jirtay gabadh u ima jirtay gabadha aniga ii doonan oo ay isaga is yaqaanaan dabeetana waxaa dhacday gabadhaas maalin walba u timaadaa gabadhan wala sheekaystaa way wareeraysaa maskaxda markii dambe waxaan ku dhornayo gabadhan saaxiibada iga wareerinaysa iga dawqinaysa maad igala hadash markaasuu wuxuu garmaya gabadhan waa gabadh fiicanoo xataa wax dhibaato ma keento wanaaguma ka shaqaysaa kadib saasaa baan ku yidhi markaasuu yidhi haayo dabeedna farihii baan ka qaadayba waxaan ku yidhi haddaad doonaysa inaan wada hadashaan inagoo jaamacadda joogna wada hadla haddaba maxaa dhacay gabadhani maalin walba waxay guriga ugu tegi jirtay gabadhii aniga ii doonanayd waxunbay u sheegtaa waa la wada sheekaystaa maalin oo dhan mashquul baa la wadayaa haddaba anigii waxaan dareemay gabadhii ii doonanayd inay isbeddel keentay maalinba maalinta ka dambaysa waxay bilowday inay isbedesho adiguna waa dareentay marka muddo 2 sano ah ayaan arkaya murankaygii isqabqabsigaygii iyo weliba inay sii bedelayso gabadha oo isbedelayso waalidkeed aabaheedii hooyadeedba way la arkeen gabadhii inay isbedeshay anigii maskaxdaydii markaa waxay noqotay anigii inaan ka gaabiyo asxaabteedii iyo Xusaama oo tashiish ugu furmo macnaha kadib waxaan ku yiri gabadhii maxaa kugu dhacay maxaad adigii isagu ku wada hadashaan waad ka shakiday micnaha mashaki baad maya laakiin waxaan ku yiri markaa maxaa dhacay oo mar walba aan ku raado maxaa dhacay idin tiraa waxma dhicin oo weliba sidii santaag aad u hadlaysaa mar walba waxaan ku yiri markaa maxaa dhacay suureen waxaan ku yiri daqalaas hadaba masaasas ku tirina iska tag haddaba markii ay gurigii tagtay way ila soo hadashay waxay ku tiri kaala farqiga kaa qaado marka isbeddelka waxa ku keenay miyaad ogaateena waxaan ogaaday ee dadka qaar ay soo gaarsiiyeen in saaxiibkay Usaama isagu kooxdeeda kama mid ahaa qofka iyada igu diraya maya anigu aan hadalka dhamaystirto daaha dhamaystirto macnaha anigu marnaba kuma fakarayn inay saaxiibkay Usaama dartii iga tagayso sababtoo ah kumanaan iyadoo kale ah ayaan kaga kalsoonaa isaga waarun saaxiibka dhinaysa lagama soo mari jirin laakiin saaxiibku waa inuu noqdo mid dhaba waa inuu noqdaa khaladaad qaarkeed baa haddii xataa cidida uskageeda ka yaryihiin kugu noqonaya waran laba ritaanahay adiguna waxaad ka dhigatay walaal ma noqonna sidaad doonaysay haddaba Usaama Caamir wuxuu kugu tuhmayaa inaad adigu ka dambaysay gabadhii guriga saaxiibkaa burburisay oo halkaana xiriirkooda ku kala go'ay maya dee waa khalad waxaasi anigu xataa dee waan u dhaaranaya hadduu i aaminayo ma aaminaysa hadduu kitaab kugu dhaarto kitaab soo qaado gacantan kuu saaraya ma rumaysanaysa weligii anigu been maan sheegin xataa maxaan ku falayaa beenta markaa yacni eeg waxaa jira arrimo kale halkaa jira oo caddayn karta inuu rur sheegayo oo ugu horreyn isagu istuudiyahan wuxuu u yimid oo weliba malaayiinka qof oo dhan ay daawanayaan waxaasoo dhan hadda aan dhihi karo imika malayla 7 kamaradood baa yaala istuudiyaha una yimid inuu ku raali geliyo qirtana dembigiisa kuna dhaho waan khaldamay waayo anigu waan xanaaqsanaa muddooyinka hadda 2 sano dareemayna culays una yimid inuu khafiifiyo waxa qalbigiisa ku jira una ka dalbado adiga inaad dib isku soo noqotaan oo xiriirkiini dib u soo noqdo aan ku dhahay xataa waxa jira xiriir taa ka weyn idinka yani dad isdhex galay macal qoys xaraan weeye inaad saa ku tagto sabab yar laga yaabo inay xun tahayba taasi inuu ku khaldamo xataa waa laga yaabaa inuu khaldamay laakiin uu qirsan yahay khaladkiisa ka fakir xoogaa qof hadduu kaa dhinto miyuu kuu soo noqon karaa ma ka fakirtana suwacan ma uga fakirtana weliba anigoon ka qoobmaynin si kastay haataba Usaama wuxuu kaaga tegayaa hadalkii ugu dambeeyey kudhe Caamir una go'aansaday in aan gidaarka laydiga hor qaadin waanu go'aansaday inaan ku saamixin bes waxaan ku dhe laga yaabaa inuu isbedelee waxaan ka odhan lahaa saaxiib miyay ku cuntan weyday inaan adiga awga halkan u yimi weliba intaasoo milyan oo qofa hortooda aan cafis kugu weydiisanayo miyay ku cuntan weyday ii sheeg saaxiib inaynu maalmo wanaagsan oo qurux badan xataa soo wada qaadanay saaxiib hadalkayga ma ku cuntami waaye waan gartay hadalkii kugu dambeeyay adiga haddaba
ilaahay ku sahlo saaxiib sideeda kale ah laakiin anigu waan kaa calool go'ay kumana saamixi karo iga raalli ahow bes ba haa waa sidaa waa go-aankaagii ugu dambeeyey miya haddaba si kastee haataba waa isku daynay usaama waxaan qaban karnay waan qabannay wixii waajib anigay saarnaa waan sameeyey waad idaaliseen bes maxaan qabtaa marka waan kaaga mahad celinayaa haddii aad timid halkan naga raallow haddii aan ku dhibnay amba aan ku cadibnay amba maaragtay hadalka kugu badinay naga raallow haddii aan culays ku saarnay okay ku noqosho wanaagsan oo farxad leh ayaan kuu rajaynayaa markaad baqdaad ku noqoto iguna salaam dhammaan iyo ehelkiiba kun jeer adna sidoo kale mudane waanan ku faraxsanahay la kulankaaga ilaahay ku daayo nabadgeliyo usaama haa waan isku daynay anigu waan isku dayey soo saas ma aha bes waxbaan ku oran lahaa haye mudane adigu waad khaldan tahay weliba micnaha yani adigu waad ku ciyaartay isaga maya dee ciyaar maaha ilaahay un baan khaldamin waan gartay mar kale isku day dhowr jeer dhimane insha allah waxaa laga yaabaa halka ay baqdaad inaad ku guulaysato kani waa saaxiibka insha allah waana isku soo noqon doontaan oonad heshiin doontaan oonad soo ceshan doontaan maalmihii waana okay ay maca salaama waanad mahadsan tahay waan ku rajo weynen inuu gidaarkani furmo oo ayna heshiiyaan iskuna dhegaan wanaagooga iyo saaxiibtinimada inay soo ceshtaan laakiin qisooyin baa jira oo si yaroo fudud aan ku dhammaanayn hadday kalgacal noqon lahayd iyo hadday farxad noqon lahaydba waa jiraan qisooyin aad u adag insha allah waqtiga ayaa hagaajin doona waad mahadsantiin dhammaantiinna iyo qisadeena xigta